madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtay madaxweyne uu magacaabis iyo xilka qaadis ku sameeyay mas'uuliyiinta ugu sareysa ciidanka booliska isagoo taliyaha guud ee ciidanka booliska Somaliland u magacaabay sareeye guuto Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale halka uu taliye ku-xigeenka ciidankaasina uu magacaabay sareeye guuto Cabdi Xasan Mire Faarax isagoo xilkana ka qaaday taliye ku-xigeenkii hore ee ciidanka booliska sareeye guuto Faarax Maxamed Mire warsaxaafadeedkan oo madaxtooyada ka soo baxay waxa ku saxiixnaa Mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Somaliland haddaba waa kuma taliyaha cusub ee la magacaabay Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale waxa uu dhashay 1967 waxa uu kamid ahaa asaasayaasha ciidamada qaranka Somaliland xilligaasi oo lagu jiray waqti adag lana doonayay in dib loo soo celiyo tiirarkii dawladnimo sanadihii 90meeyadii ilaa 2000 waxa uu soo qabtay xilal kala duwan isagoo laba goorna dalka dibadiisa ugu baxay waxbarasho la xiriidha ciidamada militariga isagoo markii uu dambeysana dhiganayay kulliyad military oo lagu magacaabo Ethiopian Defence Command and Staff College wuxuuna ka soo diyaariyay oo uu qaatay Degree of Military Science and Leadership December 2011 waxa uu madaxweynihii hore ee Somaliland Axmed Silaanyo u magacaabay hoggaanka howlgelinta ciidanka qaranka kadib markii uu madaxweynuhu ku qancay aqoontiisa waxqabadkiisa iyo khibradda uu leeyahay ciidamada militariga Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale taliyaha cusub waxa uu kamid ahaa 12 sarkaal ee ciidamada militariga booliska asluubta iyo ciidamada badda ee nasiibka u helay 2 February 2013 in madaxweynaha Somaliland Axmed Silaanyo uu gacantiisa ku guddoonsiyo darajada gaashaanle sare ama waxa loo yaqaan full colonel wuxuuna ahaa sarkaalkii ugu daada yaraa 12 sarkaal ee uu madaxweynuhu guddoonsiiyay darajooyinka kala duwan May 2015 sanadkaasi waxa uu Maxamed Aadan Saqadhi kamid ahaa 3 sarkaal oo laga dhigay janad buuxa isagoo noqday sareeye guuto 2017 madaxweynihii hore ee Somaliland Axmed Silaanyo ayaa mar kale u magacaabay la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca arrimaha gaashaandhigga isagoo ka bedelay hoggaanka howlgelinta ciidamada qaranka ee Somaliland ugu dambeyn maanta oo ay taariikhdu tahay 5 bisha 11 ee sanadda 2019 madaxweynaha haatan ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa u magacaabay taliyaha guud ee ciidanka booliska Somaliland kadib geeridii ku timi Allah u naxariistay taliyihii hore ee ciidamada booliska Cabdishakuur Salaaban Cabdikariim telefishinka Ariel Hargeysa adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida